guddiga qandaraasya qaranka ee Somaliland ayaa maanta shaaciyay 10 mashruuc waxaana soo xareystay 135 shirkadood munaasabadan ayaa ka qabsatay xarunta guddiga qandaraasya qaranka waxa goobjooga ka ahaa gudoomiyaha guddiga qandaraasyada mudane Nuux Maxamed Xuseen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda xubnaha guddiga qandaraasya qaranka shirkadihii soo xareystay marti sharaf leh waxa uu go'reynba halkaasi ka hadlay shirkadahana la wadaagay sida ay mashaariicdan u dhacayaan gudoomiyaha guddiga qandaraasya qaranka mudane Nuux Maxamed Xuseen halkan waxa ku tartamaya 133 shirkadood waxay ku tartamayaan 10 qandaraas waxaanu shirkadaha u ballan qaadaynaa 10 ka qandaraas waxa looga baahan yahay 10 shirkadood 10 ka shirkadood inaanu si daahfuran aanu xulan doono natiijadana si daahfuran ay guddidu u soo bandhigi doonto ayaanu idin ballan qaadaynaa shirkadaha hadhayna waxaan u rajaynaynaa nasiib wanaagsan waa siyaasadii xukuumadda oo hogaaminayo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Bixi Cabdi in dhaqaalaha dalka loo sinaado oo la baahiyo oo loo tartamo geestiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo mashaariicdan maanta la shaaciyay ay mashruuc ku lahaayeen iyo xubno ka tirsan guddiga qandaraasya qaranka iyo shirkadihii soo xareystay mashaariicdani waxaan rajaynayaa in ilaa shirkadii heshaynay wax tayo leh oo qiimo leh oo dhaxalgal qarankeena iyo ummadaba u noqda ay u dhisto biin Ilaahi tacaala waxaan tartamayaa hawlgabka shaqaalaha ayaan tartamayaa insha Allah haddaan helo iyo haddaan waayaba si fiican baan u hambalyeynaya dhismaha diirka muxuu burco marka insha Allah waxaan rajaynaynaa wax khayr qaba على قناة التلفزيون كون كيبل هرقيسة.